gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo wehelinaya mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa caawa booqasho ku tagay isbitaalka weyn ee magaalada Burco sidoo kale goobaha yaalaan ciidamadii maanta ku soo dhawaamay dagaalkii ka dhacay deegaanada degmada Qurulugud sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu qadar lacageed u qaybiyay ciidamada halkaas ku soo dhawaamay isagoo sidoo kale amray in la qaado ciidamada ay culus tahay xaaladooda caafimaad ee dagaaladaas maanta ku soo dhawaamay intaasi kadib gudoomiyaha uu shir ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay arrimaha dagaalkaas waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhacdada maanta ka dhacday deegaanka Qurulugud lagu soo duulay dadka shacabka ah ee deegaankaas duulimaadka aan sababaysnayn waxaanu runtii u tacsiyeenaynaa dadkii ku dhintay waxaanu dadkii ku dhaawacmayna Ilaahay uga baryaynaa inuu booqadhayo oo caafimaad siiyo waxa muuqata in dagaalkaas uu yahay mid qorshaysan oo la doonayo in lagu weeqo qarannimada Soomaaliland la doonayo in wax lagu waxyeeleeyo dimuqraadiyadda iyo hanaankii doorashadii ololihii socday oo qarannimada Soomaaliland lagu majxaabinayo cid kasta oo ka dambaysa oo ama dibad ka soo amaamuday ama guda joogta oo wada oo ka soo amaamuday waxaan u sheegaynaa qarannimada Soomaaliland dadka reer Soomaaliland wuu difaacanaya waxaananu faraynaa dadka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan xisbiga wadani inay dalka difaacaan isbarbar taagaan ciidamada qaranka iyo ciidamada difaaciga dalka oo isbarbar taagaan waxaanu leenahay dhamaanna ciidamada halaga dheeraado wixii xadguduba iyo qof yani maca darafka kale cid shiciba in wax la waxyeeleeyo oo lagu xadgudbo wax kastoo xadgudubana halaga dheeraado waxaanu leenahay ujeedo ay kamid tahay in hanaanka dimuqraadiyadeed iyo doorashooyinka lagu baajiyo ayaa kamid ah in qarannimada lagu dumiyo qaranka Soomaaliland uu jiraya doorashooyinka dimuqraadiyadooduna way soconaysaa dadka reer Soomaaliland wuxuu diyaar yahay inuu difaaco dalkiisa waxaanu doonaynaa inanu hadaanu nahay xisbiga wadani difaaca qaranka qayb baanu ka nahay qaybtana baanu ka ahaanaynaa doorashooyinkana isma taagi doonana ma joojin doonto gacanna waa ku galeynaa oo doorashadaan ku galeynaa midna waa ku difaacaynaa waana insha Allah taala waa laga guuleysan doonaa cid kasta oo dhibaato wada waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland midnimadii iyo walaalnimadii iyo isku duubnidii ayaa wax ku noqonaysaan hala ilaaliyo inagoo wada jirro inuu xaqaban karaa aan ka wada jirro aan ka wada socono Cabdiraxmaan Amar telefishinka Universal Burco.